تاينيكا باي سمين دون جيس كميدا كميدا تراروي كودا تاجي سميريا برتمان جروك يلا سبي عدن كماتينجا بس كميدا ولا جسو دينيا مركبة وكميد عتيبة وكوانا مركل كراروي بماريا سعيد كسو دينيا برتمان جروكا كل نادي عصباً ونبي waxaa si rasmi ah loo soo gabagabeeyay tartankii Nevy Zone Phase 1 tournament finalkaasi oo ka dhacay garoonka Hilaac تاينيكا باي سمين دون جيس كميدا كميدا تراروي كودا تاجي سميريا برتمان جروك يلا سبي عدن كماتينجا بس كميدا ولا جسو دينيا مركبة وكميد عتيبة وكوانا مركل كراروي بماريا سعيد كسو دينيا stadium halkaasi ay ku kulmeen labada kooxood oo kala Karaaruwe FC iyo Midnimo FC ciyaarta finalka waxay ku soo idlaatay barbaro waqtiga caadiga ah kadib kulan adag ay labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar ku dhisan xirfad dadaal iyo adkaysi maadaama loo kala bixin waqtiga caadiga ah بارك عني سوق هذا مدينة محمد عيسى بدن السيادة من كوبي قالبية ارتباط راكبيكا مركل ولا ديبسي ولا رسديلية مدينة وأكنا عريضة waxaa si rasmi ah loo gudbay Rigoria halkaasi ugu dambeyn guusha raacday kooxda Karaaruwe FC oo noqotay guuleystayaasha Nevy Zone Phase 1 tournament kulankan taariikhda ah waxaa ka soo qayb galay dhammaan bahda FKF waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa Vice Chairman Cabdiraxmaan Yunis labadiina waa dadaasheen kaaba meesha idin yaala Soomaa no one is a loser everybody is a winner now because waxaan haysanaa kaab Karaaruwe xogo wax yar ka yareeyntiin waa inta aad ka horgasheen FKF registration marka ayagana way dadaaleen saas ku sii wada thank you very much waxaan aad mahad ugu celinayaa daadiyaasha garoonka maanta Atikay asu weeyahay Atikay waxa way liigtaha hadda inta ka socda Nevy Zone ma sha Allah kaalin libaax uu ka qaatay waxaan dhahaynaa referee kubwa congratulations adin naftirkaaga maadaama si wanaagsan ay kugu dhamaadeen anigoo iloweynin in the presence of all the zonal chairpersons maadaama waqtigan uu nagu yar yahay waxaan ka cudur daaranayaa inaan idin siin karin kulligiina hadal aad ku hadashaan all the sub branch of maaragta will support you iyo taageerayaal tabaruca tartankan iyagoo wehelinaya dhalinyaro haweenay si weyn u muujinayaan farxadda iyo taageerada u hayaan ciyaaraha Cabdiraxmaan oo Vice Chairman FKF ay si weyn ugu bogaadiyay labada kooxood isagoo xusay in Karaaruwe FC ay guul ku mutaysatay dadaalkii ay muujiyeen halka Midnimo FC ku amaanay ciyaar wanaag iyo tartan hufan munaasabada waxaa sidoo kale lagu guddoonsiiyay bilado sharafa kooxda Karaaruwe FC next Midnimo waa meeshan next هل مرة يقول لا أنا محسن معاه محسن أي ما halka kooxda Midnimo FC la guddoonsiiyay walmarno dhiirigelin waa ugu dambeyn tartankan ayaa lagu tilmaamay mid si weyn lagu dhiirigelinayo isdhexgalka dhalinyarada horumarinta kubadda cagta iyo xoojinta midnimada bulshada Nevy Zone وكنا كبدا إنك إليان كأدك ورك معاسكي ويقال دونا فالي وادي كبدا سيد بوبي الخديبتانو بوبي مسجد وجهك باعث فرق علي قادر يمين نيمو سيد بوبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. FKF sub branch iyo martida general soo dhawaada waa meeshan uu mahadcelinayaa referees sidii sharafta leh shaqo fiican ay qabateen Atiga and Steve welcome back congratulations Kararu FC congratulations midnimo sidoo kale waxaan ilaahay ka rajaynaynaa roobkan qabanaan loo sii anaga magaaladan aan joognaa biyo qabow iyo mashakal gooyada biyo noo dhaaminayo dad walaalahayna miig jooga arafaadsan niyo salaad walbo la tukada hal xasuusto in la roob doono ilaahay roob laga toogo soo ilaahay roob qaban naga siiyo teeda labaad alxamdulillah bulooni nabad buu noogu dhamaaday waxaan u mahadcelinayaa intii qof ka qayb qaadatay Mesa Solution National Bank then Safina Solutions Abdullah Bare dad badan baa naga qayb qaatay inta nabadda kulli mahadcelinayna insha Allah teeda kale tintaan waxaan u sheegayaa waxa zone phase 1 waa la dhamaatay phase 2 aan bilaaban doonta taan oo sidaaran insha Allah teeda kale intii team oo ka qayb qaadatay ligan 13 teams ay ahaayeen 13 teams waxa la kala qaaday inay boroy leeyihiin برونيغاس إن شاء الله عوال الدين سوايا مش هذا ما يصير والدين شجع إن شاء الله تاخذ نكون قبل إن شاء الله سرواد فصح فصح هيا وجينا هيا وجينا هيا وجينا Beep, 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 beep.